Golaha Ammaanka Qaramada Midoobay ayaa diiday qaraarka dowladda Ruushka ee xabad joojinta. Golaha Ammaanka Qaramada Midoobay ayaa xalay u codeeyay qaraar ay soo gudbisay dowladda Ruushka, kaasi oo inta badan diiradda lagu saaray xabad joojin iyo sidii shacabka Falastiiniyiinta ay u heli lahaayeen gargaar degdeg ah maadaama wax walba ay gabaabsi ka yihiin Gaza. Xubnaha Golaha Joogtada ee Qaramada Midoobay ayaa u codeeyay qaraar ay soo jeedisay dowladda Ruushka, waxaana oggolaaday Ruushka, Shiinaha, Gabon, Mozambique, Imaaraadka Carabta, waxaana ka soo horjeestay Mareykanka, Ingiriiska, France iyo Jaban. Sidoo kale waxaa ka aamusay dalalka Brazil, Malta, Albania, Switzerland, Ecuador iyo Ghana, waxaana fashilmay qaraarkii dowladda Ruushka ay u soo gudbisay Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay. Waxaa la geyn doonaa Golaha Ammaanka Qaramada Midoobay qaraar ay soo diyaarisay dowladda Brazil. Taangiyada Yuhuudda oo kusii dhawaanaya Gaza. Taangiyada iyo diyaaradaha dagaalka Israa'iil ayaa kusii dhawaanaya Gaza, halkaasi oo 11 maalmood duqeymo xooggan ay ka geysanayeen diyaaradaha dagaalka Israa'iil oo duqeeyay guryaha dadka shacabka Falastiiniyiinta ay ku nool yihiin. Waxaana la tilmaamay ciidamada Yuhuudda dagaalka ay u diyaarisay inay gaarayaan 350,000 oo askari, kuwaasi oo ka qayb qaadan doona dagaalka ay la geli doonaan ururada Xamaas iyo ururka Xisbullah, oo isna sheegay haddii Israa'iil weerar dhulka ay ku gasho Gaza, waxaana weerar ku qaadi doona dhulka Israa'iil. Waxaana sidaasi sheegay mas'uul sare oo u hadlay ururka Xisbullah oo magaciisa aan la shaacin. Waxaana weli socda duqeymaha Israa'iil ay ku hayso goobaha dadka shacabka ay ku nool yihiin, waxaana shacabka Falastiiniyiinta loo diiday inay helaan biyaha, cuntada iyo korontada. Waxaana jira dad badan oo ka cararay guryahooda iyaga oo badbaadsanaya naftooda maadaama Israa'iil ay jartay wax walba oo bulshada reer Falastiin lagama maarmaan u ahaa. Taangiyada Israa'iil ayaa tan ilaa markii ururka Xamaas ay weerar qorsheysan ay ku qaadeen dhulka ay Yuhuudda xoogga ku haysato. Khubarada arrimaha militariga waxay sheegeen in haddii Israa'iil weerar dhulka ay ku qaado Gaza, waxa ay kala kulmi doonaan dhabarjab xooggan. Godadka dhulka hoostiisa ay ku leeyihiin ururka Xamaas ayaa Israa'iil u horseedi kara jab xooggan haddii weerar dhulka ay ku qaado Gaza, waxayna kala kulmi doonaan ciidanka si adag ayaa ugu tababaran in ay la dagaalamaan mise dhulka hoostiisa ay kula dagaalamaan, iyo hubka taangiyada lagu burburin karo ay haystaan ururka Xamaas. Afhayeen u hadlay ciidanka Israa'iil oo dhawaan la hadlay warbaahinta waxa uu sheegay in ay dib u dhigeen weerarkii ay ku qaadi lahaayeen Gaza maadaama ay jiraan roobab xooggan oo ka da'aya meelaha ay doonayaan in ay weerarada ay ku qaadaan. Ciidamada Israa'iil oo weerarkii bilowday toddobaadkii hore mise 7 bishan, waxaana laga laayay Israa'iil saraakiil iyo ciidamo badan oo ka tirsan ciidanka dalkaasi. The Israeli military denied rumors of a temporary ceasefire to allow goods and materials into the Gaza Strip. Currently, there are no such ceasefire efforts. In case anything changes, we will update the public. We are carrying on with the war against Hamas, the murderous organization. In case something changes in regard to the hostages and those missing, we will fully update the public on acts as such. Israel's Prime Minister called for political unity in the wake of the worst attacks the country has suffered in decades. The condition of our success is unity. We should remain united. We should remain united at the level of the National Unity Government and the people as well. And I'd like to extend all thanks to the members of the opposition who continue to make a maximum effort. More rockets have been fired from Gaza into Israel. As usual, most were intercepted by the Iron Dome defense system. The Israeli military continues to pound the strip. What you're looking at there is the neighborhood of Beit Hanun.